qaar ka mid ah isimada nabadoonnada waxgaradka iyo haweenka mid ka mid ah beelaha shanaad ee deegaanada Puntland oo maanta shir jiraa'id ku qabtay magaalada Garowe ee xarunta Puntland ayaa waxa ay qaadaceen hanaanka lagu soo xulay xubintii ay ku lahaayeen xubnaha baarlamaanka cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Axmed Keenan oo ka mid ahaa qabanqaabiyaasha shirkaasi oo ugu horreyn ka hadlay waxa uu ka warbixiyay ujeedka shirkaasi. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Maanta oo taariikhdu tahay 26-ka bisha tobnaad 2016 maalin Arbaca waxaanu halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo aanu ku cadeynayno anigoo ah xildhibaan Maxamed Axmed Keenan kana tirsan xildhibaanada federaalka Soomaaliya 40 kursi ee xildhibaano ee la keenay Puntland si ay uga qayb qaataan doorashada ka dhici doonta Garowe si cadaalada qodobka 4.2 ee madasha qaran waxa ku qoran oo lagu heshiiyay odayga 135 ku jira oday dhaqameedyada Soomaaliyeed haddii dadkii uu u soo saxiixay ergooyinkiisa ay kala joogaan laba dawlad goboleed waxa uu asaga wax ka qori karaa kaliya gobolkii uu ku dhashay oo kaliya gobolka kalena wuxuu u sameysanayaa wakiil waxaana xildhibaanka soo dooran doona jifada kursiga iska leh sidaa darteed waxaan cadeynayaa aniga oo ah xildhibaankaas kuraastiisa la keenay Puntland kana tirsan beesha shanaad gaar ahaan qabiilka Madhibaan qayb garabkiisa Maxaad Barre waxaan cadeynayaa odayadeydii oo isimada ahaa oo garabkayga taagan in aan waxba lagala tashan ergadiina la qoray la gudbiyay loona wakiishay nin kale oo ka tirsan jifada Maxamed. sidoo kale xubnihii ka hadlay shirkaasi waxa ay si cad u sheegeen inaysan marnaba raalli ka noqon doonin qaabka loo xulay xubnaha cusub waxaana ay ugu baaqeen madaxda sare ee Puntland iyo beesha caalamkaba in arrinkaasi hoos loo eego. qodobkayga koobaad waxa weeye waxaan maqlayaa ergo aanan shaqo ku lahayn oo beesha madaxdeedii ah aan la ii sheegin aanan xogna u hayn ay isku qorteen garabka Madhibaan maxay hayto Maxamed la yiraahdo taa iyada ah waxay ku dhacday si tuugaysiya bay ku dhacday wajahada koobaad ninka maxay hayto 525 wakiilka uga Madhibaan isaga ayaa soo qoray waxaan jirin ayuu soo qoray waxaan jirin buu soo qoray wuxuu u keenay nin uu yiri waa ii wakiil oo isla raaskiisa oo qaybta reer Maxamed ah sida uu sheegay xildhibaankanagu doorashada iyada total waanu qaadacnay gelimayno sheegayaa madaxweynaha Cabdiweli Cali Gaas iyo nimanka leeyahay iyo madaxweyne ku xigeenka Inacami waad dhaarateen kitaabad ku dhaarteen waxaad ku dhaarteen inaad dalka iyo dadka daacad si ah aad wax ugu qaybsan dhaartii ha ilaawinina sidii aad u dhaarteen ee ahayd inaad dalka iyo dadka cadaalad wax ugu qaybsan iyo gudida waa inaad kitaabkii alle aad codaysaan ninna aydin jeclaysan meesha aad ninkaga tagayso nin baad kaga fogaataa bal taas waa midda kale ee waxaan idin sheegayaa kursiga kan waxaa lagu duubaa Madhibaan baale kuraasta Madhibaan waleeye laakiin yuu kala yahay Ciise Maxamuud iyo Cumar Maxamuud maxay isku yihiin dusha ma jirteen bal isaga yiraahdo iyagoo marka ay kala yaraan kursiga Cumar Maxamuud miyuu qaadan karaa Ciise Maxamuud waa maya beesha Siciid Kuul anigoo nabadoon oo ah ergada maanta halka maaragtay nagaga jirta iyadoo midna aan aniga waxba igala tashan waxna ii sheegin oo aan war iyo wacaltoona uga hayn waxaan idin sheegayaa hadii la yiraahdo ergadaasi erga annaga naga tirsan ama san naga socota maaha meeyfantay maaha namana matasho beesha Maxaad Barrena ma matalaan beesha Siciid Kuulna ma matalaan agi oo nala ka qaaday oo loo geeyay niman aan lahayn oo naloo dhacay annagoo ah beesha Maxaad Barre waxaan leeyahay nin kursigiisii uu yaalo meesha la yiraahdo cadaado in kursigayga loo qaato annagoo dhalada oo Puntland naloo ka qaadanama istaagisho dawladda Puntland waxaan leeyahay oo anigu idin leeyahay oo gaar ahaan waliba anigu aan leeyahay horta marka hore qabiil ma xoogaa dawlad kale oo macnaha laba dawladood iska soo jeedo xabad ka dhaxaysta horta ma is xoogaan oo ma isbaadaan oo maxaa isu keenay Puntland iyo Galmudug maxaa isu keenay xabad baba naga dhaxaysay maxaa kursigayga u geeyay Galmudug kursiga cadaada yaala ama rag cadaada jooga maxaa Puntland keenay anagu taasaan taaganahay rag iyo dumarna difaac baan ku jirnaa weerar baan nahay
gacan baanu saarana haddii laga jawaabo waynu si degdeg anaga uga jawaabna wallahi oo waliba dumar tabashada beeshani oo kamid ah beelaha shanaad ee dega Puntland ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli qaar kamid ah beelaha Soomaaliyeed dhexdooda uu ka jiro muran ku aadan sidii loo xuli lahaa xubinta uga mid noqonaysa mudanayaasha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya. Cabdi Fataax Cabdullaahi, Kalson TV, magaalada Garowe.